bishii Febraayo 1991 maalmo yar uun kadib burburkii dawladdii milatariga ee Maxamed Siyaad Barre ayaa xubno ka tirsan ururkii Al-Ittixaad al-Islaam waxay mucaskar ama xarun tababar ka fureen magaalada Kismaayo. Ururku markaas waxay jireen 8 sano, hase yeeshee dhicitaanka dawladdii waddanka ka jirtay ee caburin jirtay ayaa siisay fursad ay ku dhaqdhaqaaqaan, iskuna hubeeyaan, kuna samaystaan xarumo milatari. Intii aysan dhicin dawladda milatariga ah waxaa sanadihii ugu dambeeyay si qarsoodi ah waddanka u soo galayay oo guryaha dadweynaha iyo meelo gaar ah lagu daawan jiray cajalado laga keenay dalka Afghanistan oo maqal iyo muuqaal ah, kuwaasi oo ka hadlaya dagaalkii iyo jihaadkii reer Afghanistan ay kula jireen shuuciyaddii midowga Sofiyeeti. cajaladahaasi waxaa waddanka Soomaaliya intooda badan soo geliyey dhalinyaro Soomaali ah oo ay ku jiraan xubno ka tirsan ururka Al-Ittixaad al-Islaam. gaar ahaan dadka loo nisbeeyo waxaa ka mid ah 3 nin oo lagu kala magacaabo Aadan Axmed Caraale oo ku magac dheera Aadan Jihaad, Maxamed Cabdi Faarax iyo Ibraahim Xaaji Jaamac oo isna loo yaqaano Ibraahim Afghaan, xilliganna ka tirsan madaxda ugu sarreysa ururka Al-Shabaab. 2 ka mid ah 3daasi nin waxay ka soo qayb qaateen jihaadkii dalka Afghanistan, waxayna cajaladaha ay keeneen tusayeen dagaaladii ay mujaahidiinta reer Afghanistan la galeen midowga Sofiyeeti. waxaana cajaladaha si weyn uga dhex muuqday khudbadihii iyo falsafadii Cabdalla Yuusuf Cazaam. لا يهمنا ما نراه من إرجاف المرجفين أعمال عملاء اليهود والنصارى. Cabdalla Cazaam waxa uu ahaa mufti jihaadi ah oo u dhashay Falastiin. waxa uu ahaa ninkii caalamiyeeyey jihaadka Afghanistan. haddii si kale loo dhigana waxa uu ahaa maskaxdii ka dambaysay in jihaadkii Afghanistan ay ka qayb galaan jihaadiyiin laga soo dumo caalamka islaamka oo dhan. falsafadiisu waxay ahayd jihaadka iyo qoriga. Ibraahim Xaaji Jaamac Ibraahim Afghaan oo ka mid ahaa dhalinyaradii dabayaaqadii 80-aadkii ka tagtay dalkan Maraykanka si ay ugu biiraan jihaadka Afghanistan ayaa dhowaan ka hadlay idaacadda taageerta Al-Shabaab, waxaana uu ammaanay maqaamka Cabdalla Cazaam ee jihaadka caalamiga. Cabdalla Cazaam waxa uu ahaa faqiih al-jihaad al-mucaasir, mu'assiska iyo caqliga iyo quwadda cilmi ku garab galay jihaadka. shakhsiyaadka noocaas ah Maxamed Qutb iyo Cabdalla Cazaam Sheekh Usaama waxa ay kaga tageen raad weyn, sidaa darteed Sheekh Usaama shakhsiyadiisa halkaas ayay ka abuurantay. Cabdalla Cazaam waxa uu ka soo horjeeday waanwaanta, shirar la qabto iyo wada xaajoodka. shakhsiyaadka ku qancay falsafadiisa ee ku biiray jihaadka Afghanistan waxaa ka mid ahaa nin maalqabeen ah oo u dhashay dalka Sacuudiga laguna magacaabo Usaama bin Laden. sanadkii 1989 ayaa Cabdalla Cazaam lagu dilay magaalada Peshawar ee dalka Pakistan, balse falsafadiisu waxa ay ku fiday dunida, waxaana booskiisii buuxiyey rag uu ka mid yahay Usaama bin Laden oo isna sii gaadhsiiyey rag Soomaali ah oo iyaguna soo gaadhsiiyey Soomaaliya. dhalinyaradii wadatay falsafada Cabdalla Cazaam uuna ka mid ahaa Ibraahim Xaaji Jaamac Ibraahim Afghaan waxay mucaskarka ay ka fureen magaalada Kismaayo u bixiyeen mucaskarka Khalid bin Waliid, waxaana uu noqday mid soo jiita arday badan. Cabdishakuur Mire Aadan waxa uu dhowaan soo saaray buug uu ugu magac daray Kobcii Islaamiyiinta Soomaaliya. Kismaayo waxa uu guuray inta badan xubnihii islaamiyiinta ururka doonaan ha ahaadaan ee qabaa'ilada aan ahayn qabaa'iladii ka soo jeeday ururka USC. markii la isugu tagay Kismaayo waxa la amaamuday ama meesha la oran jiray school wada ama mucaskarkii Khalid bin Waliid. waxa markii ugu horeysay ku amaamuday nin la yiraahdo Korneyl Maxamed Rashiid Tabsha oo reer Kismaayo ahaa. abaabulkii ugu horeeyay markii ugu horeysay guryaha ayaa la isugu yimid, laakiin markii dambe waxaa mucaskarka laga amaamuday halkii la oran jiray school wada. waxaa mucaskarka ku kaalmeynayay Ibraahim Xaaji Jaamac Meecaad iyo nin la yiraahdo Aadan Axmed Caraale Aadan Jihaad. labadaa nin ayaa qaabeynayay. ururka Al-Ittixaad al-Islaam waxay sii fidiyeen inay mucaskaraad ka furaan meelo kale oo ay ka mid yihiin Doobley, Raaskaamboni, Gedo, Muqdisho, Marka iyo Qaw oo ka tirsan gobolka Bari. hogaamiyihii ugu horreeyay ee ururka Al-Ittixaad al-Islaam Sheekh Cali Warsame Xasan ayaan weydiiyey waxa ururku ugu baahday inay samaystaan garab military. markii dawladdu burburtay dawladdu ku gaxdayda markii aan dawladdu jirin ayaa shabaabkii ragii dhalinyarada joogay baa la yidhi war waxaan dadkeena aan ku badbaadsano waxaynu inagu nahay marada maanta dawlad maanta dadku nabadgelyadooda ku shaqeynaysa aanay jirin. dhalinyarada meelaha intay ku urureen meelaha khaasatan walihii Kismaayo iyo meesha xagga ku qaxay ayaga markaa arrinta ugu horeysay aasaasay oo yidhi aan nafteena ku badbaadino. Sheekh Cali Warsame waxa uu barnaamijkan u sheegay inaan marka horeba golaha shuurada ee xarakada Al-Ittixaad isku raacsanayn mucaskaraadka. meesha waxay ku iskaga bilaabmeen maaragtay masalan markii qoladaas xagga u qaxday ay ka samaysteen qolihii Kismaayo ay ka samaysteen mucaskar xeradii gobolada cidla iska arkeen dabeedna iskaga tababarteen. arrintii waatii markaa
sidaas u dhacday sidaas markay dhacday waxoogaa ay maaragtay nimankii waxoogaa dhalinyaradi waxoogaa maaragtay yaray awood waxoogaa yeesheen meeshaa tegey waxaa iska dhacday kuwo kalena inay iskaga daydeen oda xamarka joogtay iyaguna wax kala mideel ay dhibtii badatay oo dee mooryaantii arladii meelaan dowlad jirinay ahayd mooryaantii meel walba waxay wadnoodo ka samaysay ayaa qolo walba yidhi waa marla ishursano inaguna maynu askar samaysano wixii markii raggii ay taaweenba inay xoog leeyihiin rag baa dee danaaciyeyba inay maaragtay jabhadihii dee iyaga la loolanayeen oo maaragtay s n f t iyo s s d f t iyo kuwaasoo ay marka ay tidhaahdeen mala idinkaaba ka xoogdoon wuxuu sidaasay ahaayeen wax inta shuuro iyo maaragtay go-aan lagu go-aamiyey waddankaynu qabsanaynaa maxaan idhahdaayay qolo walba halkay joogta ha qabsato ma ahayn